السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي نعيم وقباد channel ka daawanaysiin waa ogbaad official Soomaali weyn soo dhawaada kale iyo laab sanaan kale gacaltooy naana iga dheh ma garateen waxaan ka codsanayaa inta hore igu joogtay laagta kore naana ku si oo videoga loo arko ilaa kum darnaada inta cusub soo yaaca naana ku subscribe ka isaar gambaleelka furta share gareeya comment gareeya waa arka commentigiina quruxda badan leh maalin walba adiga soo bixisaan dhiirigelinaya ii tahay subscribe kana naana iga siiya maasha Allah mahad celintiinana mar walba kama daalo ilaahay baa mahad leh basakoo idinkana mahad ayaad leedihiin ilaahay wuxuu dhahay adoonkeyga cidaan mahad celin ana iyo mahad celin marka waa mahadsantiin walaalayaal marka aan halkaas aan uga baxo muxuu ahaayay walaalayaal waxaan arkay nimca habi oo maaragtay runtii aad iyo aad maaragtay Soomaalideena wallahi Soomaalida dhan ma wada ahan qaarkood ayaan ka hadlaynaa TikTok oo been abuur ah ayaa laga furtay oo la leeyahay waa nimca habi ayaa maaragtay markaas u taabatay soo wada boodayaan oo gabadha magaceedii ayaa lagu qaraabanayaa haddana Instagram tahay Snapchat wax kaste magaceedii iyo sawirkeedii iyo maaragtay fiidiyoyaal meel kale laga keenay oo la isku keenay ayaa maaragtay laga wada furtay ka xuma horta Soomaalideena kulli ma wada ahan inta xun ayaa sheegaya gabadha lugaha ku dhagan maadaama ay magac yeelatay awalna magac waa ay lahayd laakiin magac local oo Soomaali dhexdeeda ma ahayd laakiin caalamka in the world hadda magaceedii iyo heesteedii ayaa u qaraxday marka walaalayaal inaad sameeysid maaragtay gabar walaashin aad tafaha ku dhigtiin oo maaragtay lugaha uga dhigtiin muxuu ahayd aad maaragtay been ka abuuratiin horta waxaan arkay gabar iyo wiil wuxuu yahay ma garanayo because sawirkii nimca habi uu saartay TikTok-geedii maaragtay Instagram-keedii waxyaabo badan oo waxaan arkay hatta YouTube lagu furtay ma garateen markaas aan u fiirisid maaragtay dad badan oo caana ayaa maaragtay u mahad celinaysay ayada marka kiya inta la soo goostay maaragtay yaa la soo gashtay gabar wiil horta wuxuu yahay ma garanaa laakiin meel walba markii nimca habi keep going la dhahayo mahadsanid ee soo qortaa thank you idinka la'aantiin hore ma u soconin hadaa sii fiirsidna maba ahanbo nimca habi maba ahanbo ma garateen marka walaalayaal dad cadow ah iska jira oo dadka markii magac ilaahay siiyo magacii maalin bay ku haleelaan maqli jiray baxaane gabadhii markay arkay inay hawada maraysa iyo daba galeen ma garateen wahee daba galeen markaas waxay dhaheen muxuu ahaayay nimca habi meel walba magaceeda laakiin waxay tiri nimca habi cabdiya igu qoranay tiri ma garateen marka kaas waa ay dhahday kayga runta ah isla asagiya haddana laga furtay oo qof aan ku arkayay marka isku xishooda ilaahay ka cabsada maaragtay qofka ha ka daba qaraabanina idinka furta wixii ilaahay inka siiyo waa kaasa ku alxamdiya hadii lagu daawaday hadii kalaba ayadaba channelkeedii hore lama daawan jirin subscribe isaareen dhigi jirtay dhigaha iska furaysan jirteen hadda YouTuber waaweyn oo caan waxa arkay ku haay maaragtay walaa waayaa ku haay nimca habiyay shalana share awdo u sameey weyseen waa soo fiiri weyseen fanaanad qaran ahayd fanaanad Soomaaliyeed ahayd inkastoo fanku u sanfiicneen ilaahayna inta ku jirta Allah ka midoobeeyo inta maaragtay ka soo hanuuntana de ilaahay oo ka soo hanuuniyay hadda la ka xaajibcay soo kale way ka soo hanuuntay dad badan ka soo hanuuneen BK dad badan ka soo hanuuneen insha Allah taala inta ku jirtana ilaahay waxaan ku baryaynaa inay ka hanuunaan marka laakiin qofku wuxuu rabo maaragtay ha ku jiro oo laakiin ilaahay ka soo hanuuniyo laakiin inaad page ku furatiin Facebook haday noqoto war wax kasta oo aalad oo la isticmaalo ay ku wada furteen ma garatay markaas markii la fiiriyo waxaan ku iri waa muxuu ahaayay hadda TikTok waxa arkay hawada maray iyada malahan ay tiri aniga melihi ilaahay ka cabsada yaa laygu qaraabanin yaa been layga sheegin qof bilaadanka hadaad ka daba qaraabatid aday bahdil ku tahay wajigaaga la imo hadaa samaysanaysa adiga iskaaga u samayso qof ha ku daba dayanin qof maaragtay sawiradiisa ha ku qaraabanin muxuu ahaayay maxaan dhigi jiray video islaamiga ku qaraabanin say ayada maaragtay 9 bilood ku dhalatay adna wad ku dhalatay nasiibkaaga leedahay waxaad cunaysid iyo maaragtay Allah ku qoray marka inaad magaceedii ka daba qaraabatiin oo isla markiiba hawada ku dhigtiin aragtiin laakiin waa in soo qabtay waad ceeboodeen runtii waad ceeboodeen ma garateen ceeb ayaan ku dhacday isku yaxyaxa oo isku xishooda ma garateen si xun ayaad yeesheen wallahi ceeb u tirgeed ayaan ku dhacday ma garateen runtii
فنان maxaa arkayay abwaan oo yiri asagana abwaankii heesaha u sameeyay nimca ana u sameeyay ayuu lahaa muxuu ahaa Cabdiqaadir waxa sameeyay magac Cabdirashiid la dhahay la yiraahday oo dhahay wuxuu dhahay runtii anay maaragtay iga soo maaxatay maaragtay afarta luqadood ay ku heesaysa luqad anaga iskale saddex kalena waa ajnabi marka wuxuu yiri habeenada kamida aniyo asxaab isla wada fadhino baa wuxuu yiri gabar baa waxay itriyo yiri mar walba waxay ka sheekaysaa nin ay jeceshaa nin aan jeclahay sheekadeeda waa dhageystaayo dhahay mar walba haddana meesha shaaxa lagu cabaayo dhahay waa isku wada imaanaa mar walba waxay leedahay yiri wallahi nin aan jeclahay hebel la dhaho saan asagana iima soo jeedo waa sidan waa kan qalaf waxay igu soo dhacday yiri waxaan aan maaragtay aan ka abaabulay macnaha aan ka sameeyo dhahay afartan luqadood ee Soomaalida ay ku jirto afka Soomaaliga uu ku jiro oo luqadeena ah marka wuxuu yiri waan isku aadiyay waan fariistay waan hagaajiyay saas ayaan nimca happy ugu dhiibay yiri marka abwaan adigana waad mahadsan tahay maaragtay inkastoo aysan fiicneen in hees aad maaragtay dad lagu baraarugiyo ama maaragtay lagu dhaho ma sha Allah dee wax fiican ma wanaagsana laakiin waa ka qayb qaadata runtii haddii la rabo qofka fikradiisana uu leeyahay waxa dhanba horta fanaan ayaa bahalka abwaan uu leeyahay qoro cid kasta abwaan uu qoro asaga iskama qorto dhinacna waxa waa musiciankii muskada garaacay mid laxanku keenaya mid erayadii keenaya midna ku dhawaaqidii midna wuxuu keenayaa muxuu ahaay maxaa la dhihi jiray sida maaragta loo garaacay kabanka waxyaabo badan oo maaragta falsheedaan iska dhale falsheedaan wuu yahay ilaahayna ma jecla runtii marka saasaa maaragta la iskugu aadiyay haba ahaato ayada horta ayadoo ka tagtay oo ka samartay YouTube-keedii waxeedii iskaga tagtay oo maaragta wadankii hooyo ee Soomaaliya ee caawda joogto ayaa maaragtay wiil kale oo Zakariya la dhahay ayadii la naadinay ama dad cadaan ay wareysanayaan oo dhahay heestan yaa iskale buu arkay kadibna wuu naadiyay asna uu ka qayb qaatay waayo wuxuu gabadha xagee jirtaa ma aribay raacaysa ma baadiye aad oo xagee aad naana iga dhax bay lahayd ma garato ayuu lahaa wiilkaas marka ayada iyo abwaanka iyo wiilkaas oo raadiyay asagana runtii kamaysan warqabnayada marka asaga fariimo badan ayuu diray uu ku habar gabadha soo qabta raqabta heesta iska leed nimca happy war loo sheego war waa la doonaya war gabadha u waca ma garateen marka muxuu ahayti marka walaalayaal aada waxa ma horta nimca happy in loo adeegsado gabar iska walaal way degantaa waa masaakiin waad aragteen muxuu ahayti TikTok-geedina magac beena lagu samaystay meel walba magaceedii ahaaday agashid daa israad kumanaan kun oo waxa soo xariiraysan ku ira oo saf soo galay oo magaceed kaliya mana wanaagsan oo lagu wareeray ma garateen waana maaragtay faaxisho waaye dad oo maaragtay iimaanka ka kacay ayaa waxaas ku qaraabanaya falxumana waaye qof asaagaaga oo walaasha inaad tafaa ku dhigtid ama aad ka daba qaraabatiin reedahay isku xishooda ilaahayna ka baqa ma garato sheergareey walaalayaal waa Ugbaad official waa walaashiin waa masaakiintii naana ka siiya rusheegta leedahay ma fahanteen